waxaan liisanka qaadanay 5 bisha January 2022 muddo hal sano ah waxaan ku jiray preparationkii markaad liisanka sharciga qaadato ee banginimo kaliya maalinkaaba hore kama bilaabaysid shaqada bangiga waxa lagaaga baahan yahay diyaar garow iyo shuruudo kale lagaaga baahan yahay waxaana laga rabaa inaad diyaariso dhammaan branchiyada iyo head office-ka aad leedahay standard aad u samayso iyo heer aad u samayso marka branch standardizationka ayaa wuxuu nagu qaatay waqti waxaanan diyaarinay 51 branch ama sub branch in aan standard sax ah oo heer sare u samayno oo ama qalabkii ha noqoto ama ha noqoto appearance-ga guud ama goobtii ay galayeen ee guryaha noqotee in la diyaariyo ayaa lagu guuleystay waxa lagu guuleystay key staffski ama shaqaalihii muhiimka ahaa oo khibrad bangile in la shaqaaleeyo muddada iyada ah haddana uu yahay bangigu bangi dhaqaaqi kara oo national banking markuu qiimeeyey uu deedna bixiyey liisankiisii bangiga waxaa u shaqeeya shaqaale ilaa 1,000 qof gaadhaya waxaa hadda la tababaray oo tababarkii bangi la siiyey 884 qof oo shaqaalaha bangiga ayaa tababar la siiyey 884 shaqaalaha bangiga yaa tababar dhammaystiran la siiyey oo ready waa inay adeegii bangiga bixiyaan inta ka soo hadhay waardiyada iyo nadiifisooyinkii iyo dadka shaqaale hoosaadka ah bangiga kabitaalkiisu wuxuu gaadhayaa 565 milyan ayuu gaadhayaa asadkiisuna waxa uu ka badan yahay 3 bilyan 3 bilyan buu kor u dhaafayaa asadkiisu waa Shabeelle Banki waxaan u diyaarinay Central Vault aan ugu talagalay ama qasnad guud oo dhisnay oo meel nadiif ah oo amni badan aan ka dhisnay oo ugu talagalay deegaanka bangiyada jiro oo dhan inay hab u noqoto lacagtooda oo ugu hayno waxay karaan aan ka qaadno dawladuna waxay diyaarisay ciidan aad u adag oo hubaysan in la dul dhigo oo lagu ilaaliyo qasnada iyada ah waxaan leenahay lacagaheeni iyo lacagaha bangiga ee shacabku ay ururin doonaan waxay ku jiraan gacan nabadgelyo ku jiraan waxa kale oo jiro iyadana nabadgelyada kamida qawaaniinta bangiga waxa kamida markaan liisanka qaadanay laga soo bilaabo ilaa yoomka aan taaganahay maalin kasta waxa baara oo telefoonku baara ama report loo diraa bangiga qaranka bangigani wuxuu bulshada u qabanayaa muxuu yahay bangigani bulshada wuxuu u qabanayaa huge investment ku sameynaya microfinance waxay sameynaysaa dadka yaryar masaakiinta ah ayay maalgelinaysaa ama lacag yaryar oo 10,000 iyo 100,000 iyo 200,000 iyo 1 milyan bay siinaysaa laakiin in hoteelo la maalgeliyo beero waaweyn la maalgeliyo warshado in la maalgeliyo suuragal ma ahayn hadda dhammaan ganacsiga noocyada kala duwan heer uu joogaba uu maalgelin karaa bangiga Shabeelle saadarteed laguma dhisin Ethiopia iyo wadamada kale mushaaraad la qaatay iyo ganacsi yar oo dukaan meel laga furtay financial institutions baa waxay maalgeliyeen horumarka aad aragtaan ee dalka ka jira ama fooqyada dhisan ha noqdaan ama warshada ha noqdaan ama ganacsi kale ha noqdaan marka halka cidii wixii ku gali lahaa taas weeyaan waxa kale oo sameeynaya bangigani in ganacsatadeena ku dhimatay inay helaan hard currency-ga ama lacagta dollarka in meel loo soo marin karo national bank ugu soo marin karo oo ay ka heli karaan si fudud inuu noqdo bangigu ayaa iyaduna adeega maxaa markaa loo baahan yahay lacagtan faraha badan leh wareegaysay Soomaalidu gacanta ku haysatay inay bangiga geliyaan oo iyaga markaa deedno loogu shaqeeyo oo adeega ay qabato weeyaan haddayna iyagu lacagtooda soo dhigin bangigu bangi noqon maayo adeegna ku qaban maayo